laga daynayo nooc dadka noocayana in la iska qabto oo fanaaniinta dhexdooda iska qabtaana waa muqadas haddii la iska qaban waayo Soomaa saasay baasho soconaysa ama sanadkan isaga leey 100 sano hadii ka soo wareegto noolahooda ma nooshahay meesha aan kugu arkaan waan kugu jira tagay taa xisaabta ku qoro ama wallahi oo billahi hatta lacag noqoto inaan ku bixiyo qofka ugu horeeyo nolosheeda qof inaan dhibaateeyo isku madayn laakiin ninka ugu horeeyo ee aan adduunyada aanan daynin inta nool haddii ay noqoto 100 sano ka soo wareegtaan aan ku jirna tagay taa hadaba ama caytan ama waxaad rabtaa wanaagsan daawadayaal meel kastoo caalamka aad ka joogtaan halkani waa warbaahinta Xuseen Germany official fadlan haddii aad ku cusubtahay subscribe li kambalka furashada noqoto walaha ugu horeeya muuqaalada halkan aan soo gelino like sharta muuqaalka daawanaysid siina sharagaleyso asxaabtaada la wadaagto qayb toosana aad faalo ama comment macquul aad ka soo dhibato muuqaalkan haddaba fanaanada caanka ah Hodan Cabdiraxmaan kuna sugan magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu soo waramayaa in ay dagaal xooggan u kala dhaxeeyo fanaanka Dalmaryare Hodan Cabdiraxmaan ayaa sheegtay inay ku jana tagayso Dalmaryare sabab iyadoon la ogeyn dagaalkan xooggan ee soo kala dhaxgalay labadan fanaan dhanka kale Hodan Cabdiraxmaan ayaa si cara leh uga hadashay oo isla markaana ugu hajabtay in ay galaafan doonto noloshiisa iyadoo sheegtay in aysan weligeed isku dayin qof bini aadan ah in ay noloshiisa galaafato taas haatee Dalmaryare uu yahay shakhsiga ugu horeeya ay rabto in ay noloshiisa